haddaba runtii labadaa wiil beenta way caadaysteen iyo inay wax faafiyaan. labadaa wiil halistooda dadku ha ka digtoonaadaan, ha iska ilaaliyaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan asxaabtayda qaaliga ee ku xidhan channelkeena Maxamed Wardi Official. soo dhawaada dhammaantiin. intaanan muuqaalka bilaabin, like saara siduu dad badan u gaadho, annagana dhiirigelin ugu noqoto. asxaabtiinana usii share gareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. asxaabtayda qaaliga, maanta muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idinku sheego waan digniin idin siiyo ku saabsan laba wiil oo isku sheega inay wariyaal yihiin. haddaba labadaa wiil waxay soo gudbiyaan warar been ah oo aan xaqiiqo ahayn. labadaa wiil horta wiil ka mid ah hore ayaynu uga soo hadalnay. waxaa la yidhaahdaa magaciisa wariye Cabdulqaadir CC. wiil dhalinyaro ah ayuu ku sheegay inuu khaniis yahay. haddaba dadku ay la yaabeen markii wiil dhalinyaro ah uu ku sheegay inuu khaniis yahay oo uu sharaftiisii meel uga dhacay. waad ogtihiin qof islaam ah oo sharaftiisii meel lagaga dhacay dembigay leedahay. haddaba wiilka dhalinyarada ah ee uu ku sheegay khaniiska, markii hore TikTokta ayuu soo dhigi jiray muuqaalo xunxun, kadibna waxay noqotay in wiilkaas wax xun laga faafiyo. isaguna wuxuu ku adkaystay inuu wiilka war been ah uu ka faafiyo. subxaanallah, dadku way la yaabeen. iminka haddii aad page-kiisa gasho, kumanaan kun oo qof ayaa ku xidhan, kumitiyada usoo qorayaan. haddii aad eegto waad yaabaysaa. wiilkaasi warar been ah ayuu faafiyaa oo uu bulshada usoo gudbiyaa. dadku way og yihiin inuu wiilkaas warar been ah uu faafiyo. haddaba wiilka kalena waxa uu yahay wiil lagu magacaabo Maxamed Cabdiweli Tooxow. isna wuxuu ka mid yahay dhalinyarada wariyaasha isku sheega ee wararka beenta ah faafiya ee baraha bulshada soo dhiga. haddaba wiilka lagu magacaabo Maxamed Cabdiweli Tooxow, wararkii ugu la yaabka badnaa ee beenta socota ahaa ee qof ka hadlaya aan la arag isaga mooyaane waxa uu ahaa Farxiyo Fiska iyo saygeeda. markii uu Farxiyo Fiska uu yidhi AIDS bay qaaday oo waxa qaadsiiyey saygeeda, markaa dadku way la yaabeen. xataa rag YouTuber ah ayaa muuqaal ka soo sameeyey oo u sheegay wiilkaas waxa beenta ah uu faafinayo inuu iska daayo. markaa labadaa wiil waa laba wiil oo is yaqaana, iyagoo muuqaalo been ah sameynaya ayay baraha bulshada soo dhigayaan si ay lacag uga sameeyaan. labadaa wiil halistooda dadku ha ka digtoonaadaan, ha iska ilaaliyaan. dhalinyaradan oo keliya maaha ee waxaa jira dhalinyaro badan oo dadka usoo gudbiya warar been ah. anigu runtii waxaan jecelahay mar walba inaan dadka usoo gudbiyo wax run ah. ma jecli wax been ah inaan usoo gudbiyo. waxaanan jecelahay waxay dadku ogeyn oo xaqiiqada ku taagan inaan mar walba usoo gudbiyo. sababtoo ah beentu waad ogtihiin dhibaataday leedahay. qofka beenaalahana halkuu ku dambeynayo waad ogtihiin. haddaba runtii labadaa wiil beenta way caadaysteen iyo inay wax faafiyaan. anigu runtii muuqaalkan aan soo sameeyey waa muuqaal run ah oo la hubo. dhalinyarada halistooda ka digtoonaada iyo beentay faafinayaan. waxaan kaa codsanayaa inaad sii share garayso muuqaalkan oo aad dadka muslimiinta gaarsiiso si ay uga digtoonaadaan labadaa wiil halistooda iyo beentay baraha bulshada ku faafinayaan. asxaabtayda qaaliga, waa aniga oo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga.